Maanta iyo tiknoolajiyadda iyada ayaa wax badan ka beddeshay habka aan uga ganacsanayno guriga. Hadda waxaa suurtagal ah in dadku ay ganacsiyadooda ka furtaan guryahooda iyada oo isticmaalaya goobaha Amazon, eBay. Waxay dadka u fududeeyeen in ay wax ku iibiyaan khadka internetka. Qof kasta oo leh kombiyuutar iyo isku xir internet wuxuu bilaabi karaa dukaan online ah, wuxuuna ka iibin karaa alaab macaamiishiisa adduunka oo dhan. Haddaba ma ogtahay in kumbaniga Ombasif uu suuqa caalamka ku soo kordhiyay tiknoolajiyad ku shaqaynaysa AI, taas oo adiga oo gurigaaga jooga kuu shaqaynaysa har iyo habeen, adigoon waxba qaban. Mase ogtahay in Ombasif hal meel iskugu keentay in ka badan 50 products ama platform adiga kuu adeegaya. Nidaamyada lacag bixinta ee khadka tooska ah sida PayPal, Stripe iyo Square ayaa fududeeyay khadka inay aqbalaan lacagaha khadka. Ma ogtahay in Ombasif leeyahay wallet elektaroonig ah taasoo u sahlaysa macaamiisha inay ku iibsadaan adeegyo si free ah. Adeegyada xisaabinta cloud sida Google Drive, Dropbox iyo Microsoft OneDrive ayaa u fududeeyay ganacsiyada inay kaydiyaan oo wadaagaan faylasha iyo dukumentiyada khadka. Ma ogtahay Ombasif inuu leeyahay data center iyo cloud isaga u gaar ah oo xogta lagu hayo. COVID-19 adduunka wuxuu baray in qofku isaga oo gurigiisa jooga wax baran karo, shaqaysan karo. Baraha bulshada sida Facebook, Twitter iyo Instagram waxay u fududeeyeen ganacsiyada inay ku xidhmaan macaamiisha oo ay kor u qaadaan alaabtooda ama adeegyadooda. Ma ogtahay in Ombasif uu leeyahay free social media casri ah oo ay ka mid yihiin Onet, taas oo dad mooyaane wax fake aan lahayn. Guud ahaan tiknoolajiyadda ayaa u fududeysay dadka inay bilaabaan ganacsi guryahooda.